السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رمان صاحبة الصوماليات ملك استوى الجوكتار يسكرتوا عدو ضويسا حلو ونكسن برنامجك عوان كيسو مانتا وحوي وكان في المدينة 9 رخد يفسدون في الأرض ولا يصلحون. إن شاء الله تعالى وحنا دين هينا حق وين أو إنه كهلي جدها كوحدة دم جديد. أبين كنا وحنا قاعد سنة مقالكة إلى لايك سارتان سنة شرقيسان إن شاء الله تعالى. حبتني وحوي حق في اللباء بقول كيف بقول أو إنه كهلي جدها كوحدة دم جديد. دم جديد أو dhowr bilood ay uga hartay xukunka ayaa kulan qaadatay kadib markii ay la kulmeen MSS kooxda la baxday ama madasha samata bixinta Soomaaliya. kulankii madasha samata bixinta iyo damujadiid ama kooxda xukunka haysa kadib damujadiid waxay isugu tagtay shir degdeg ah waxayna falanqeeyeen laba qodob oo kala ah maxaa aynu samaynaynaa haddii waqtigeenu dhamaado taas waa la isla gartay oo waxaa la yidhi extension waa inaan samaysanaa sidoo kale waxaa iyadana la falanqeeyey yaa kursigan halis ku ah oo naga qaadan kara labadaas qodob ayaa muddo laga doodayey kow in ugu dambeyn extension la samaysto labo doorasho hadiiba la aado cidda caqabada ku ah iyo waxa labadaas qodob hor istaagi kara in hadda istiraatiijiyad laga yeesho strategic plan qurux badan ay samaysteen waxaana ka soo baxday sidoo kale horta kooxdu markay falanqaysay cidda kursiga ka qaadi karta waxay isu sheegtay muddaxileedka hadda xasan markuu dhamaado in la joogo teramkii beesha daarood oo kursigani uu ka tegayo bilowda hawiye waxaa lasii falanqeeyey marka maadaama teramka uu yahay teramka daarood kursiga ayaa qaadan kara iyadana waxaa ka soo baxday in uu kursigan qaadan karo maxamed cabdullaahi farmaajo extensionka haddii aynu samayno isagana yaa caqabad ku noqon kara ayaa la isweydiiyey iyadana waxaa ka soo baxday laba qolo oo iskaashata ayaa naga hor imaan karta waxaa la yidhi marka waxaasoo dhan dawadoodii waa inaynu hadda diyaarnaa maxamed cabdullaahi farmaajo maadaama uu yahay ninka keliya ee khatarta ku ah kooxda sida iyagu u arkaan oo kursigan ka qaadan kara waxaa la horta dagaal guud oo daarood oo inaan galnaa oo kursigan inaan daarood ismaaciil dib ugu soo laaban oo inaynu ka shaqaynaa hadda qaabkaasoo kale waxaa u fikiraya xisbiga republicanka ee maraykanka waxay leeyihiin maadaama aynu kursiga nimid waa inaynu dimuqraadiyadii ka taqallusnaa halkan weligeen aynu joognaa taasaa la istusay waxaana la yidhi maxamed cabdullaahi farmaajo kursigan si looga ilaaliyo waa in laba koox iyo isaga la kala ilaaliyo kow waxaa la yidhi nimanka mucaaradka ahay daarood madaxweyne dani iyo madaxweynaha jubbaland axmed madoobe iyo farmaajo horta waa in la kala ilaaliyaa si gaara waa in rag uu ku kalsoon yahay madaxweyne siciid dani loo diro oo la yidhahdo madaxweyne soo dhowow teramku waa teramka daaroodka dabcan musharax baadna tahay kursiga inaad qaadato baad doonaysaa annaga laftirkeennuna haddii ciduna beddelayso inaad adiguna beddeshaan doonayna marka waxaa weeye si aynu kaagala shaqayno hawshaas iyada ah waa inaadan adigu ilduufin ood hal arrin ka fogaato muxuu yahay arrinkaas waxaad ka fogaanaysaa ninka la yidhaha maxamed cabdullaahi farmaajo sababto ah wuu kaa brofil weyn yahay waa nin taageero weyn oo shacbiyad haysta waa head of state oo dalkan madaxweyne ka soo noqday marka ninkaas haddaad wax ku darsato wuu ku sheeqinaya kursigu daarood buu aadaya kor iyo hoos laakiin isagaa qaadanaya marka si aad wuxuu noqotid waa inaad ninkaas ka fogaataa axmed madoobena sidoo kale rawku kalsoon yahay loo diro la yidhahda maxamed cabdullaahi farmaajo waad garanaysaa war waa nin mariixaana war gadow kugu haystaa war balaayaha ka shaqayni oo haddaad maaragtay walba annaga aadna diidan tahay dee inkaar kale dushaha sii saaran luuqadaas cidda kula hadlaysa damajidi toos ma aha sababtoo ah waxaa weeye haddii siciid dani iyo damajid meeshay kala joogaan waa dogtaa laakiin cid uu maqli karo ilaahu may noqoto kooxda MSS laftirkeeda rag ka mida in la adeegsado waa tusaale oo la diro saasayna u badan tahay ragga mucaaradka ah ee hawiye xamar fadhiya rag ka mida in la dhex maro iyo tiimkiisa rag ka mida oo laba dhinac looga keeno barnaamijkaasi lana yidhaahdo ka saka maxamed cabdullaahi farmaajo sidaas ayaa la qorsheeyay taas marka waxaa la yidhi markaan ku guulaysano sufuufta daaroodka kala dhantaalno markaas
وحاوي وحين أسوي جيسنينا عقبات ياكو إن المركب بدو كورسي سمايسا بدو كورسي جال الفرنقية مدحوينه وحود ديار صدي عيدا أفر إلى 5 كل ولحية oo ilaalada madaxtooyada kooxda la yiraahdo maxawati 77 ciidanka la yiraahdo oo ilaalada madaxtooyada ah rag uu adeer u yahay buu u dhiibtay qabiiladii kale hawiye ama Soomaaliyeed waa laga takhalusay xataa abgaal waxa weeye in ciidankan qayb la gaarsiiyo lagu ballamay oo ilaa 3 guuto laga dhigo ciidamo cali gaaf ah wixii lagu daraahuna ay yihiin beeraha la yiraahdo waa laga tirada badan yahay oo yani leesleeya u shaada nimaad ka qaadan kartaa loo dhiibtaa rag saasa in lagu xoojiyo ciidan ilaa 4,000 5,000 u dhaxeeya madaxweynuhu diyaarsado taas waa la isla gartay waxa la yiri marka extension markaan sameeyno ciidankaasna aan diyaarsano nimankan MSS sida caadada ahayd godad bay qodan doonaan muxuu ahaaytay xasan oo soo baxaa bilaaban doonta waxa la yiri marka nimankaasu xagee xoog ka heli karaan xasan qaatay wuxuu horta nimankan aniga iyo iyagoo wada soconna ayaan magaalada muqdisho shacbiyad ka weynay shacbiyadna ma heli karaan aniga xagga shacbiyadda waxbay barnaamaan laakiin waa inaan halin iyagana ka ilaalinaa waakii wuxuu maxaa Cabdullaahi Farmaajo nimanka inuu ku biiro iyadana waa inaan ka hortagnaa sababtoo ah maxaa Cabdullaahi Farmaajo inuu qori garabka surto sida Xasan Sheekh uu xasan oo soo baxay yiraahdo lagama firanayo dhaqankiisaba ma laakiin nimankii hawiye ee MSS oo dhufeysay qotay ciidan wuxuu heli karaan diyaarsaday iyo maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyaga ku soo biiray oo isaguna la yimiday bulshadii Soomaaliyeed taas iyaduna caqabad nagu ahayd magaaladan maxamed Cabdullaahi Farmaajo haduu yimaado nimankaas mucaaradka ku biiro waa ninka kaliya haduu hadlo 1 milyan oo qof soo saari kara 1 milyan oo qof reer Muqdisho markay soo baxday wadooyinka mudaharaad qabsadana dee xabad inaan kala hortagno xal ma noqonayso meeshan isaga carrin noqonaysa haddii aysan nimankaas Farmaajo helin shacbiyad heli maayaan waxa weeye ciidamada aan haysanana ku caburayna niman siyaasiyiin fawdiistayaal ka dhigayna midan dilay midan idina ka dhigi karnaa baa la istusay qodobkaasna hoosta laga saxeexay waxa la yiri marka nimanka la yiraahdo MSS-na shaarka qabiilkan u adeegsanayna waxaan leenahay ilma adeer riyaalow kursigan waa ogtihiin xilligii Farmaajo ku fadhiyo wixii nagu wada dhacay anagoo wada jiro ma xasankii aan ku jiro moogtahay waxaanu doonaynaa kursiga in hawiye haysto oo muxuu hayto uu halkaas mar dambe uusan muxuu haytay u noqon daaro oo anagu aan haysano maadaama marka anaga koox waqtigu ka dhamaanaya aynu nahay waxaan doonaynaa kursiga nin adinka idin kamid inuu qaato haddaad tihiin MSS haddii marka aad kursigan rabtaan inaad qaataan yani hawiye nin oo idin kamid uu sii hayo waa inaad Farmaajo ka fogaataan haddaad Farmaajo muxuu haytay u yeerataan oo idinku soo biiro waxa weeye adinkana wuu idin shiiqinayaa markaana kursiga daarod buu aadaya isaga baa macaashi adigu la khasaaraysa marka haddaad rabtaan inaad danaha hawiyatan Soomaaliya ka shaqaysaan ninka ka fogaada nin adinka idin kamida ayaan insha Allah taala kursiga u diyaari doonaa sidaasan iyagana leenahay si aan Farmaajo iyaga ugu biirin xogta markii la isku soo jamciyo marka halka shakhsi oo ay ka baqayaan horta damajid wuxuu noqday maxaa Cabdullaahi Farmaajo sababtoo ah waxa weeye madaxweyne haysta taageeradii ummadda hadda koor waxaan idin sheegay berigii badbaado qaran in 3 beelo hawiye xamar degan ay ku ballameen inay 1,000 qof magaalada ka soo saaraan laakiin way suurtagal weysay oo waxa weeye shacabku wada diiday waxay marka kooxdu aaminsan tahay xasan wuxuu aaminsan yahay MSS isagoo kamid ah maadaama 1,000 qof ay soo saari waayeen haddana isagiiba uu ka sii maqayo saameyntiisa kala maqan yahay in aysan magaaladan shacabka soo bixin karin caqabada ugu weyn wuxuu arkaa in Farmaajo iyagu ku biiro shacbiyadii uu kula biiro iyaguna ay qorigii soo qaataan oo bahasha markaas la yiraahdo xasan oo deg waxa weeye shacabkii magaalada mudaharaaday magaaladii oo dhan ka xirantay waxa weeye iska tag ama xasan dambi ku galo isla bal xooga qori isticmaalo dad badan ku dhinto dadkuna joogsan waay waxa weeye marka horta labadaas qodob ayay damajid isla falanqaysay kursiga in laga difaacdo wuxuu ahaaytay beesha daaro labo kuwa la firkooda meesha fadhiyana iyadoo shaarka qabiilka loo adeegsanayo iyagoo firkooda aysan qaadan kooxdana meesha ay extension wax la samaysato xasan Sheekh iyo kooxdiisu wuxuu fikirayaan iyagoo shaarka qabiilka adeegsanaya inay dadka hawiyaha ku maalaan kursiga in hawiye haysto weey laakiin isla hawiyahaasuna waa un iyaga cid kale hawiyaha wuxuu ogolyihiin ma jirto haddaba waxa weeye talan soo jeedinaya marka nimanka daaro Ismaaciil ee saddexda ah mid baan leeyahay
nimanka hawiye ama MSS ha noqdeen ama ha noqdeen damujadiide iyagana mid baan leeyahay kuwa daarad aan ku hormaro sawirkan waxa weeye waxaa kaga muuqda 3 dibi sheeko caan ah iyo libaax waxa la yiri 3 dibi oo meel daaqayso walaal ah ayaa libaax yimid dibiyada midabkooda saad ka aragteen mid waa cad yahay mid waa madow yahay mid waa guduudan yahay labadii madowga iyo guduudkii la sharay wuxuu diigan cad aad baa loo arkaa waa iftiin midabkiisa cad awgi marka wuxuu si idin la noolaado oo muxuu ahaaytay cadawna uu loo arkin isaga aan ka taqalusno saddexdoodii wada dilay hilibkiisa isaga cunay maalmo markii la joogo kii guduudna la sharay wuxuu wardiigan madow isagana waa la arki karaa midab wuxuu leeyahay cajiib si aan cadawgu loo soo arag aan isagana dilno dibigii guduudna iyo libaaxa isla dilay ugu dambeyn dibigii guduudna iyo waxa soo haray libaax aan daba walaayay maanta waa aniga adiga war maxaa casubtan saaxiibkeen adeer wuxuu walaalaha adiga feeri gooyay raallahu markuu sii dhimanayo dibigii guduudna markuu wuxuu yiri maanta layma cunina waxa la cunay maalintii dibiga cadaalo cuna waa kii ugu horeeyay waxa weeye marka horta maanta xasan maxamuud sida xasan oo daarado haduu idan kala dhantaalo oo munaafiqiinta idin soo diro bamba idin ku dhex tuuro waxa weeye waxa idin sheegaya qorshaha xasan inuu yahay kursigan daaro dambe inuu sahiilin ujeedadiisu waxa weeye daarada kursiga inuu ka riixdo hawiyanaanka uu sharaf badan ama ugu muxuu ahayti kaarka weyn isaga ay soo arka markasta dantu dan shakhsiga ku soo ururaysa laakiin qabiilku waa la deegsanaya waxaan leeyahay marka niman yahow waxa qormaya waa taariikh ceelkuna waa tookoota tookadii niyaa la jooga iskaashada oo kursiga midkiin ha helo daarada taas ugu gaabinaya nimanka hawiyana soo jeesanaya ayadii aan ku furo waxay ahayd وكان في المدينة 9 رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون nimanka hawiye ama damajadiid ha noqdeen ama ha noqdeen MSS waxaan leeyahay niman yahow ha noqona reer Thamuud niman la dhihi jiray reer Thamuud baa waxa loo soo diray nabi la oran jiray Saalix alayhi salaam rasuulkaas markii loo soo diray muddo badan buu u digay oo la war muxuu ahaatay sameed caabudaysan joojiye oo ilaahay ka baqa war Allah baa jira idan abuuray way diideen muddo badan markuu wacdiga waday ay maalinta dambe dhani warkaa waa batay wax cadayn ah evidence wax keen maxaa inaad nabi tahay ama rasuul tahay loo soo diray cadaynay wuxuu yiri maxaa ku cadaya waxay leeyeen buurtaas weyn dhul buuraleey degaa buurtaas weyn ha foolato hal ha dhasho hadii ilaahay sidaas sameeyo waa ku aaminayna wuxuu yiri ilaahay ka baqa war waxaas waxa weeye mucjiso weyn weeye hadaad ku gaalowdaana waa la halaabaya waxay dhahniyay la kaalay hadaad rushigiiso ilaahay buu bariyay ورسول إلهي صدر ولو إلهي دبدي بإلهي دعادي وكأقبلي أو حول لهم عشاس السي بور وينو ماشي كتالا نمبرانتي وأنكت لغا مقلي حال وين باك الصباح هاشي مركز صباح إلهي أوامر بسور راعي هرتا مركز الحالي ولا تمسوها بسور وراشاس حمان هو التقيل أو كاللاحظة هدري لك كو قال إبياك عبد جيرين وحالي لي حشو لما علم بيلاده أذكر لما علم بيليدين وتوقات ومدحتويدي سوما waxaa la yiri tookadina cabaysan tookadeedii cabaysan maalinta waxa ku soo qajaamay waxaa la yiri marka sida la soo guuriyay hashaasu markay biyaha ka dhirtay maanta hal mucjiso ay biyaha dhan bay dhamin jirtay markay biyaha dhamayso oo ay maalinteeda tahay waxaa la yiri intay baxdo ilaa waa ma'muura oo waxyi bay ku socotaa bay waxaa la yiri qoysaska reer Thamuud guri kasta mar bay hor istaagaysaa waa la lisayaa weerashu qoyskaas ka buuxsanaya qoysba mar bay hor istaagaysaa markaas aan tiro badan ka maali jirin markay caanaha ka dhameystaan bay meeshii ku hoyanaysa iska aadi jirtay barwaaqadaasi ku jireen bal hadda eeg waxa weeye maalinna caana ka dhirig maalinna biyo ka dhirig yaa ka fiican way u adkaysan waayeen waxay dhaheen hashan ceelka kulama heshin karno waa inaan dilaa magaalada waxaa ka soo dhex baxda marka 9 nin عيد وحلاني وكان في المدينة 9 رهط يعني 9 nin oo shaydamaha magaalada ku sugnaaday يفسدون في الأرض oo arlada fasahaadina walaa yusluxun waligoodna aan waxba hagaajin wala ka shaqay 9 kaan markay shireen xilli hashan weyn dillah waankaas markii la qaatay nabigi ilaahi ee loo soo diray baa maqlay uu soo orday oo yimid ruuxu go'aanka qaatay waa go'aan qaldane ilma akhriyaal hashan faraha ka qaaday oo dilina shalna markaad codsanaysan waxa idin yiri war hasha iska daayay هذا ما أنت دشان والذي هلاقيا قرانك سورة الإلهي وحكولية كذبت ثمود بتقواها إذن بعث أشقاها فقال لهم رسول الله ما قتل الله وسقياها
فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. يعني غير ثمود نبي ويبينيين أوامرتي سلويتي كذب ثمود بتقوى يعني وحول طغيان ما أوجد وحيل واحد شيء سحق حجوان الدليل وعايز كسو صارين marka idin bacatha ashqaha ninkii ugu nasiibka daraabay iska soo saareen waxay dhaheen hashaas faylaha guur waxay culimadu tiraahdaa ninkaas wuxuu ahaa nin wada duusina ah hashi ayuu masaartu qaato faylaha jaray hashi markuu faylaha jaray maxaa dhacay marka fadamdama calayhim rabbuhum bidabbihi fasawaaha ilaahi subxaanahu watacaala waxa weeye uu halaagay kooxdii oo dhanba dhulka lala silay sababtoo ah de ilaahay waa lama calaantaan oo aayadda u dambaysa waxay leedahay walaa yakhaafu cuqbaaha consequenceska ka dhalanaya tallaabo ilaahay qaaday isagoo kama shallaayo marka waxa weeye dhulka lala simay waa la baabi'iyey sidaas ayayna ku soo afjarmeen nabiga ilaahay iyo saalixna hadda isaga ya intii taageersaneed mar hore loo sii digo xagga kooxda saddexda waxaan leeyahay marka nimanka hawiyo halkaas ku suganow tiscatu rahdin hal noqono niman mufsidiin ah oon tookootanka ogolayn oo in qaranka la qaybsadaan ogolayn ilma adeeryaal ha noqona hashani waxa weeye waa mandeeq waxa weeye waa dawladnimada maanta haddii hawiyo ku fadhiyo daaradu wuxuu xaq u leeyahay inuu tookadiisa qaato haddaad marka diidaan dhahdaan daarad meeshan mar dambe soo geli maayo dee sidii reer Thamuud u fikirteenoo waxa weeye waa nimankii ceelka hasha u diyaad noqonaysaan cuqubaana ka dhalanaysa laga yaabay dabcan inaan caadi naloo halaagin laakiin haddii dagaalo sokeeyo naga dhex dhacaan ayay iyaduna halaag tahay marka waxaan leeyahay war hashaas ha la maalo oo tookadeeda ceelka u ogolaada haddaad diidaan wixii ka dhasha oo markaasi cirib dambeed ah waynu wada arki doonaa intaasee la barnaamij kusoo gebagabaynayaa هذا وبالله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.